ma og tahay in 15 Shacbaan markii la gaaro Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoomadiisa oo dhan dadka oo dhan uu dambi dhaafaya Nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa sidaan yiri ilaa laba qof maahane labada qof ma taqaanaan midka ugu horeeya waxay tahay midka la iimaanaya shirkiga يعني إلهي سبحانه وتعالى وح لوgu talgalay cibaadada iyo wax la mid ah oo dhan qof kale iyo dad kale inuu sameeyo taas waa koow midka labaad waxay tahay laba qof mu'min ah dhaxdooda xiqdi iyo xasidnimo iyo dhulmi dhaxdooda yaala labada qof maahana inta ka dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dambi dhaafay hadaba maxaad sameynaysaa si aad fursadaas aad u heshid oo ah dambi dhaafka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu dambi dhaafo cafi qof walba qalad ka galay cafi qof walba ku xumeeyay cafi qof walba ku dhibaateeyay iyo wax la mid ah oo si ajir aad u heshid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku jeclaado maanta aad ugu mid noqotid kuwa loo dambi dhaafay cafi walaalkaaga ama cafi walaashaada iyo wax la mid ah oo dhan hadda wax hada qof qalad ka gashay waxa dhahdaa waxay tahay iga qaali noqo وحدا waxay tahay qaladka aan ka sameeyay yaani maqdam uma laabana iyo wax la mid ah taa ay adeeg la dhaha is adkay maanta ajarkaas u heshid aad ugu mid noqotid hadii adiga qalad laga galayna caafi ku dheh waxada waxay tahay waan ku caafiyay wax la mid ah oo dhan si ajarka u helno haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydmo waa muhiim aan fiidiyogan si faafino qof walba u dir insha Allah ta'ala is caafino dhamaanteena qulubta aan isku furno walaalayaal ilaa goorme ayaan anaga dhaxdeena is dagaalayna anaga dhaxayna xaqdi iyo xasidnimo iyo wax la mid ah oo dhan ayaan goorme ayaan ku sii jireyna wax la mid ah walaalayaal maanta weeyaan maalinta dhamaanteena aan gacmo is qabsan lahayn dheh lahayn maanta waa maalinta gacmo qabsiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta uu dambi dhaafay weeyaan ajirna uu nagu siinaya arintan insha Allah ta'aala barakallahu fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.